mudanayaasha sharafta leh iyo mudanayaashii ka qayb qaatay doodda wax ka beddelkii yaraa ee lagu sameeyey afartii cutub ee hore cutubkii afraad inkastoo qodobada iyo farqadaha ku jiray ay ahaayeen ama u badnaayeen farqado la raray ama laga remove gareeyay halkii aynu ku ansixinay afarta chapter ee hore doodoodu ay ku iman doonto chapterada dambe sida cutubka 7 iyo cutubka 8 oo si faahfaahsan hadhowna qofku uu uga doodi karo aragtidiisa u soo gudbin karo haddii aan intaa kaga gudbo afartii cutub ee hore maanta waxaa kale oo baarlamaanka hor yaalla qaybo ka mid ah cutubka shanaad oo sida buwaagtan aad ku haysataan cutubka shanaad wuxuu ka kooban yahay afar madax ayuu ka kooban yahay wuxuu ka bilaabmayaa qodobka 61aad wuxuuna ku ekaanayaa qodobka 69aad saddexda madax ee hore maanta markaa saddexda madax ee ku eeg 69 ayaa doodoodu noo furan tahay waa madaxa koowaad oo ah qaab dhismeedka dawladda oo saddexdii heerka federaalka heerka dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo heerka dawladaha hoose madaxa labaad oo ah iskaashiga heerka dawladaha ka dhaxaynaya iyo madaxa saddexaad oo ah dawlad goboleedyada ku soo dhawaada qof walba waxa la rabaa inuu saddexda madax doodiisa qodobada u baahan yahay amba uu aragti ka dhiibanayo dul tago waxay noo diyaaraa hawlwadeennada ururinaya maxdarka ama minitiska ururinaya si hawlwadeennadana ay shaqadu ugu fududaato qofka xildhibaanka waxa laga rabaa inuu marka hore qodobka kor istaago oo dhaho waxaan ka doodayaa ama aragti ka dhiibanayaa qodob hebel farqada taasi waxay u sahlaysaa in hawlwadeenku uu meesha aad aragtida ku daraysid si fiican u kabjar gareeyo aad baa u mahadsantihiin